15 sargaal oo ka tirsan ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa loo soo gabagabeeyay tababar gaar ah oo ku saabsan ammaanka badda iyadoo ay iska kaashadeen howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS iyo howlgalka kubcinta awoodda Midowga Yurub ee Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano EUCAP Soomaaliya. Koorsadan oo socotay 2 toddobaad oo ay ku jireen aragti iyo waxqabadyo ayaa ujeedadeedu ahayd in Soomaaliya laga caawiyo ilaalinta xeebta ugu dheer ee Afrika ka hor inta aan la dhimin 2,000 oo askari oo ADMIS ah marka la gaaro 30 bisha Juun sanadka 2023. Ku-xigeenka ciidanka ADMIS Major General Peter Matuti ayaa ugu horreyn tababarkan ka hadlay wuxuuna yiri: tababarkan dib u cusboonaysiinta waxa uu waafaqsan yahay himilooyinka la hirgelinayo qorshaha ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo waajibaadka ADMIS gaar ahaan marka la eego la talinta iyo sidoo kale tayeenta hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya ee dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Isagoo ka hadlayay xafladii lagu soo xiray tababarkan, Matuti ayaa sheegay in ay ahayd tallaabo muhiim ah oo ku aadan dadaalada socda ee lagu dhisayo hay'adaha Soomaaliyeed si loogu diyaar garoobo in si tartiib ah mas'uuliyadda amniga loogu wareejiyo hay'adaha ammaanka Soomaaliya. Ciidamada SSF oo raacaya qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee UNSCR ee tirsigiisu uu yahay 2628 iyo sidoo kale qaraarka kale ee tirsigiisu uu yahay 2670. Sidaa daradeed, dhismaha awoodda ciidamada dowladdu waa mid muhiim ah si ay awood ugu yeeshaan dhaqangelinta sharciga, badbaadinta, goobidda iyo sidoo kale samata bixinta iyo difaaca xeebaha Soomaaliya iyadoo la ilaalinayo marinada badda, isgaarsiinta iyo ka ilaalinta kalluumaysiga sharci darrada ah ee aan lagu soo wargelin iyo kuwa aan loo soo sheegin, daadinta qashinka khatarta ah iyo sidoo kale dambiyada kale. Sidaasi waxaa munaasabadda ka sheegay General Matuti. Capacity building of the Somali Navy and Coast Guard is therefore critical to enable the conduct of maritime law enforcement, search and rescue, and Somalia Coast Guard defense, and of course, including the securing of the sea lanes of communication, protecting against illegal, unreported, and unregulated fishing, and dumping of hazardous waste, amongst other international crimes. Dhinaca kale, Fabian Loudsberg oo ah ku-xigeenka madaxa EUCAP Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay in Soomaaliya laga caawiyo sidii ay wax ugu qabsan lahayd arrimaha badda iyo in EUCAP ay sii wadi doonto taageeridda tababarka mustaqbalka. Reflecting again the subject of the training you had, I think it's I take myself the interest and determination of many to advance and develop a well-functioning Navy and Coast Guard in Somalia. Ugu dambeyntii, Gaashaanle Cabdiwaaxid Cali Afrax, taliye ku-xigeenka ciidanka ilaalada badda, ayaa kula dardaarmay askartan tababarka loo soo xiray in ay isku duubnida iyo sidoo kale aqoontu ay u horseedaan in ay ku difaacaan badda iyo biyaha Soomaaliya. inta ka bacdi waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wadamada aan saaxiibada nahay ee noogu deeqay tababarkan ballaaran ee qiimaha iyo sharafta leh oo ku saabsan arrimaha ciidanka badda.